waa la gaarsiiyay dadka Soomaaliyeed in shakil geliyo oo ay laba-labeeyaan waa meel la gaarsiiyay oo qabriga dushiisa inta la istaajiyaa maaragtay inta nafti laga qaaday ayaa la yiri naf lagu afuufo qof dhintay oo kale marka waa loogu talagalay in 2016 marka ay soo dhawaato in mugdi uu ku jiro nidaamka dalka doorashadiisa iyo qaabkiisa noqonaysa anu waxaan aaminsanahay xildhibaanka la rabo horta in la doorto iyo madaxweynaha waa in publicly loo soo doortaa sida meesha ku qoran xildhibaankaasi wuxuu matalaa haddii statisticadii tirakoobka u dambeeyay wasaaradda qorsheyntu ay soo saartay haddii aan maaragtay fiirino xildhibaanku wuxuu matalaa 44,000 oo qof ayuu wakiilka yahay xildhibaankaas 44,000 ee qof wakiilka ka ah baa waxaana la rabaa hadda in haddana 2016 la yiraahdo hal oday oo kaliya yaa soo qoraya oo 43,900 intaas oo qofood xuquuqdoodii banaan kala dhigo doorka xisbiyadu ay ku leeyihiin siyaasadda waxa weeye doorka dawladnimada weeye 195 dawladood baa adduunka jira dawlad aan xisbiya lahayn ma hana qaado dalkeena markaan u soo noqono wareerka 25 sano lagu jiray iyo waliba muddo ka horeysay oo hal xisbi dalka xukumayay oo dawladda kacaanka ahayd asbaabta ugu weyn waxay ahayd xisbiya la'aanta ahayd xisbiyadu macnahoodu waxa weeye dawladnimo weeye dawladda casriga ah waxa asaas u ah xisbi dhiig iyo dhalasho uma aha asaasku waa xisbi xisbigana waxa asaas u ah muwaadinku inuu doorto dadka xisbiga ka kooban oo ah iyaguna muwaadiniin kala duwan ee aan ahayn hal jifo iyo hal qabiil iyo hal leen ahayn sidaa darteed dawladda Soomaaliya ma hana qaadayso ama ummadda Soomaaliyeed hana qaadi mayso dhibta ay ku jirtana ka bixi mayso haddaan loo gudbin xisbiyo inay dhici weyso in qof iyo cod la waayo anigu waxa ila haboon aragti ahaan ka muwaadin Soomaali ahaan waxa ila haboon dawladda in extension loo suubiyo muddo gaaban iyadoo la fiirinayo maslaxadda ummadda muddo intee leeg muddo sanad labo intay ahaataba kadibna nidaamka xisbiga la soo barbaariyo oo mataqaana ay saas nidaamka ku wareegto markee haddii 4.5 hadaloorar haddii la yiraahdo waxa lagu soo doorto isna ceebkiya la ballaarinaya dawladda markay 3 sano wax ku soo qaban weysay iyo inta hadhay haddana laba kale haddii loogu daro inay ku dhameyn karto ma u malaynaysaa taskiya loo siinaya nidaam taski ah oo maslaxadda ummadda ayaa aragtideeda kula jirta marka kolleyba waxaan u arkaa 4.5 in wax lagu doorto waxaa dhaanta in dawladdan extension loo suubiyo dhageystayaal barnaamijku ma aha saad iyo malo ee waa dood dhab ah oo ay dadku aragtidooda ku soo gudbinayaan wuxuu barnaamijku socon doonaa ilaa inta Soomaalidu isaga afgaranayso nidaamkii lagu soo xuli lahaa xildhibaanada 2016 inta ka sokaysana waxaanu wadaynaa habeen tiriska habeen wanaagsan